يا رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. هل كم حنك السلام يا أولا حبها قولها وزيرنا حلبان لها قولها البرلمانك وأن هناك وضع حسين حكمة كندا قدوميها كمشك عصب اللي ولي سقي معايا سلاديرتا بقرادة وداسيادة قرادة عاقلة يجب عاقلة دمانبا كسو قيب قلياشا هوينك دليارada يأتينا كسو قيب قلاشيبا وحليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبديد إلهي سبحانه وتعالى مهدس كله آدي وحن مهدقيا مرتبة هالك كسو قيب قلاشي مانتا على بصار كسودان كعصوب سلطان الشرماركي سلطان محمد عبد علي iyo dhamaanba salaadiinta lixda gobol shanta gobol ee kala keenay awdal maxaan filayaa ilaa cid ka joogin inkastoo gudoomiyaha gobolka awdal uu matalayo dhamaantiinba waxaan leeyahay aad iyo aad go'aansantii سلطان عبد الله سلطان كبود beelaha habar jecelo oo maanta xaflad dalcasumaad deeday bartiyeeda ba fidiyay isagana aad baan ugu mahad celinayaa inta dabadeed suldaanka cusub sultaan shirmaarke ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u fududeeyo xilkan loo doortay oo ha ku asturo beelaha Barra Abdiraxmaan waxaan filayaa waa 8 madax dhaqameed boqorro iyo salaadiinba isaguna isla tilmaamay waa sultaankooda guud ninbaa ugu yidhi halkaa ila kartamo waa 9 waa ninka xamar iska qabtay sultaan nooma ahe waa 8 kale inta dabadeen Somaliland ha noolaato gobolka Sanaag degmada Garaadag waxaan filayaa halkan ninuu baa ka tabayaa run ahaantii markaynu gobolka wada joognay aad iyo aad baa ila shaqayn jirteen si fiican xabad kastoo dhacdana waynu isugu imanayna madaxdhaqameedka iyo wartida kaleba soo saab ma ahayn ilaahay alla waa iga badbaadiyay wax badan maanta waxaan leeyahay labada boqorka boqor Cismaan iyo sultaan Saleebaan Cawil ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaankooda xasanaadka ha ugu daro arrinta ay amaamudeen ee ay seeseen ee ay dhamaystireen waxaan leeyahay xukuumadda iyo dhammaanba madaxdhaqameedka Somaliland war culays badan baa meeshan anigu intii ay joogeen waa yaraayeen waa sii batay waxaan leeyahay inaan war la shaqeeyo waxaan iskama qaadi karaane hal la bixiyo makta iyo dhaawacba hadii la ka dhigo tolow hal nin baa iga madasha aan kala ahay cudurdaarkiisa lama maqlayn odaygii gobolka degmada ugu weynaa Ismaaciil Xaajumo tolow niyo maqayn soo xanuunsaday waxaa ku dhacay odaygii saaxiibkay odayga saaxiib baanu hayno waan jeclaa madashan aad iyo aad ugu yimaado waa mahadsantahay dhammaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh